Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay wararka sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu tagayo magaalada Hargeysa. Maxamed Cabdi Maareeye, wasiirka warfaafinta kana mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Waqooyi ayaa sheegay inuusan ka warhayn safarka la sheegay in Madaxweyne Farmaajo ku tagayo Hargeysa. adeer anigu wax wara kama hayo safarka la leeyahay Madaxweyne Farmaajo ayaa ku tagaya Hargeysa kana hadli maayo. Hase yeeshee waxa uu sheegay wasiirku inuu mudan yahay Madaxweyne Farmaajo in la soo dhaweeyo laguna soo dhaweeyo magaalada Hargeysa. Haddii uu tagayo Madaxweyne Farmaajo Hargeysa maxay ku diidayaan xitaa haddii sida ay sheegeen u aqoonsan yihiin dal jaar ah ha u soo dhaweeyeen sida Ismaaciil Cumar Geelle, Uhuru Kenyatta ama Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayuu yiri wasiir Maareeye oo xusay inuu aad u jecel yahay shacabka Somaliland ee uu ka soo jeedo. oo adeer maxay ku diididee حتى سيدا أي شيئان هذا يقول قوسيين دل شارلا مدحوين دل شارلا سوماليلان هو شو دوين سيدا يوشو دوين لهاي المانتا هديو ديه لها مدحوين إسماعيل عمر قيل وحين ماني سوماليلان أما هدو ديه لها مدحوين أهورو أما مدحوين رئيس الوزراء أبي سيدا سوكلا يوشو دوين هدي أي قوسيين وحقوا مدحوين فرماتشو مانتا سوماليلان ويا هينا سيدا يوشو دوين أيام خلاص الله مركب مروال بس شو دوينتو ومهم. wasiirka warfaafinta Maareeye ayaa kula taliyay shacabka Somaliland inay la yimaadaan qorshe degan oo la jaan qaadi kara siyaasadda caalamka. laakiin waxaan jecelahay inaan talo halkan uga soo jeediyo shacabka iyo madaxda reer Somaliland oo runtii ah meel aan ka soo jeedo wanaagna la jecelahay waxaan kula talinayaa buuqa iska daaya oo la imaada siyaasad iyo talo aad kula jaan qaadi kartaan isbeddelka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ee ka socda geeska Afrika iyo adduunka oo haddii aad ka hadhaan mar dambe meel aad kala qabsataan aydan heli doonin. labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxa soo baxay warar ku saabsan in la qorsheeyay booqasho uu ku tagayo magaalada Hargeysa Madaxweyne Farmaajo oo la socdo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. hase yeeshee ma jiro ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda federaalka iyo maamulka Somaliland balse waxa la filayaa in maalinta berri ah uu la hadlo labada gole ee maamulka Somaliland Madaxweyne Biixi uuna kala hadlo booqashadii uu ku tagay Addis Ababa iyo booqashada la sheegayo inay ku tagayaan Hargeysa madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. wax kasta oo dana ay ka wada hadli karaan oo ciidda ka badan ay ka wada hadli karaan oo iskaga xiran oo aan meel loo dhaafalahay حقيقيا هذه ما أنت قف مدحها هرجيسة اللي جوسو دوينيو قف كي هو مناسب سنة وح إسكجح النايم وي سيدا بشيكتي سيدا يلا بعتن سنة الصومالي لان لحيد هل سياسة أو فديدة أو مرفشية اللغة تاليو لما سكحدوا عن التالينينو مدحدوا عن التالينين ما بيكستو عن ملها الدنيا كلكم مدح يوسير الصومالي لان كسعد waxay ku dhahayaan waa aragnaa waxa aan ku tashanay waxoogaa culays ka jire shacabkaanu ka cabsanayna waxaan dhahay shacabku soo adiga hogaanka kuuma dhiiban soo adigu madax ma tihi ma meel ay ku codeeyeen baa jira soo adiga siyaasadooda rogroggeeda iyo keenista plan A iyo B iyo C iyo dadkan future kooda inaad u taliso soo adiga laga ma rabo ma dadka marfashada ku qayilaya baad ayaad leedahay siyaasadda uga cabsanaya هذا هداي عديان وشعبكم أنتوا تشهدوا عديو وكل عديو ولقى إنسان أنا هنا إنها فكري هل كان كتير إنها عندنا أركن عندنا مقلين تاس شعبكم ما دهين بانكوي لكن مسؤولية ده ضياع عيسى شعبكم دبعت له جيستي وأنا قلفت جيجو أنا لقى وما دحين وقري أي كسان كطبعا لكن ننكي ركرج لها ننكي وحوجة صار لها ninkii future kooda iyo dawladnimadooda iyo noloshooda ka talin lahaa sida ay ku wanaagsan tahay waa madaxda Somaliland waxaan leeyahay waa inay mas'uuliyadooda qaataan oo dadka Soomaaliyeed hadda halkan imaanaya iyagoo baabaas oo baasaboor raadinaya oo shahaado raadinaya oo shati ganacsi raadinaya oo fiisa raadinaya xaqiiqdiyaan la dafirin وإن لحلا وإن open discussion لفرا رنتي أنا قلبي بروفيسور علي خليفي وأحمد إسماعيل سمعت وأكو تاجر سنة تبليغ سياسي لكن ولا بروباغامي مرفشيد أن شيء يا بروباغامي ما ضحدينا ما يدهن والحين جاي نفكر اللي هي من شوقنا داية هذا اللي داية أما دتك وحقلك لبنتي سأنت الله يسوق كانوا الله دور ستة لا تنسى كدي
maxaynu yeelno adduunka siyaasaddiisi waa isbedelaysaa gobolka siyaasaddiisi waa isbedelaysaa soomaaliya hadda dawladdeedu xoog bay leedahay taladeeday qaadanaysaa haddee taladeedii haddayna ku keento sidaynu uga bixi karnaa berigii ay jamado ahaayeen maahan haddee ummaddii haddii meel lagu qufulo oo la dhaho qufulkaasaa ku jirtaane dhinacna ha fiirinina oo cidna ha la hadlina oo cidna ha maqlina dhibna ay ku jiraan ummadda waxaa ka madaxda dhibka inay ka saaraan waxay u taagan yihiin ummadda ay matelaan inay dhibka ka saaraan oo kan hadda sheegay ku jiro marka waxaan kula talinayaa war bal fadhiista oo qabyaaladan iyo waxan iyo ishaysigan iyo buuqan iyo madaxyo mijala-aantan iska daayo dadka waxgaradkiisa iyo hoggaankiisa madaxweyne muuse biixi ugu horeeyo ha isu yimaadeen ha yidhaahdeen sidaynu soomaaliya oo maanta taladiinii taallo ula macaamilna sidaynu dhibkii ina gaadhay iyo waxa maanta inoo hor yaalla isu waafajinaa waa inay yidhaahdaan wey xataa anigu marmarka qaarkood in kastana madaxweyneha arkin marmar aan wasiirada meelaha ku arkay waxaan war haddaydaan wax kale samaynayn wasiirka somaliland wasiirka soomaaliya magacaaba isagu xamar ha yimaado ilaa adduunka dawladda waxaa loo dhisaa structure waafaqsan dhibaatooyinka ku haysta loo dhisaa marka waa inay magacaabaan wasiirka soomaaliya oo xamar imaan kara oo halkan discussion nagula geli kara oo madaxda la kulmi kara oo dadka halkan immigrationka tuban u fududayn kara oo waa inay magacaabaan marka anigu waxaan leeyahay war siyaasadda marfashka iyo qaylada iyo dhinacna loo dhaqaaqi maayo iyo waxba maqli mayno iyo waxba arki mayno hadda kadib ma shaqayn karto maskaxa shaqay